Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka ka ambabixiyay magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceerigaabo. Howlwadeennada komishanka doorashooyinka ee ka howlgali doona goobaha codbixinta doorashada ee gobolka Maroodijeex kuwaas oo lagu sii tababaray jaamacadda Sanaaga ee magaalada Ceerigaabo. Waxaana munaasabadii lagu kala dirayay howlwadeennadan ugu horeyn baa ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka Sanaaga Maxamuud Siciid Nuur iyo Komishaneer Cabdi Fataax Ibraahim Xasan. maanta waxaanu joognaa jaamacadda Sanaag waa 9kii bisha waxaanu kala diraynaa dhammaan howlwadeennadii ka qayb gali lahaa maxay shaqaalaha komishanka qaranka ee gobolada kale loo rarayay ayaynu ambabixinaynaa si fiican oo alxamdulillah waxay noogu dhamaatay ambabax wanaagsan waxaan leeyahay maxay ilaahay ha ku geeyo nabadqab shaqadoodana insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inay si fiican u soo gutaan sala sheegay waxaynu ku sugannahay jaamacadda Sanaag University oo ay ka ambabaxayaan howlwadeennada komishanka doorashooyinka qaranka uga mas'uul noqonaya goobaha codbixinta waxaynu ka filaynaa cid kasta oo ardaydaasi ay ka howlgalayaan goobahooda inay uga dambeeyaan sharciga iyo meesha maamulkooda sidoo kalena waxaynu uga filaynaa inay martisoor iyo soo dhaweyn wixii looga baahnaa ardayda ay tabantaabiyaan cid kasta oo loo marti yahay arday jaamacadeed weeye arday gobol Sanaag ka timi weeye waxay ka howlgalayaan gobolka Maroodijeex bay ka howlgalayaan waxaanu ka filaynaa in milge iyo soo dhaweyn ay kala kulmaan goob kasta oo ardaydaasi ay runtii ka howlgalayaan waxaynu u rajaynaynaa biidnillaahi kariim ardaydaasina inay hawshooda si hufan ay u qabtaan ardaydaasi qaabka ay u shaqaynayaan iyo hanaanka u shaqaynaya waa qaar lagu soo tababaray waa qaar ay waajibaadkoodii gudanayaan maaha qaar ay jeebkooda kala soo baxeen marka waxaanu rajaynaynaa ama xisbi qaran ha noqdo ama shacab kale ha noqdo in lagu ixtiraamo goobaha ay maamulayaan xalay sidoo kale waxaanu soo dhaweynay arday ka timi gobolkaas oo ka howlgalaysa gobolka Sanaag oo hadda ku sugan oo ka howlgali karta goobahan gobolka Sanaagna waxaanu faraynaa in gobonimadii iyo milgihii gobolkan ay runtii aad loogu faaniyay maalmihii aanu joognay inay ka heli doonaan ardaydaasi gaban ka baxayna waxaan ka shaqeynaynaa Hargeysa insha Allah qarankayga shaqeynayna guul loo rajeynayna si daacad ah xilkasnimo ku jirto saddex xusbino dhexdhexaad ka ahaan wadooyinna oo shaqeyno insha Allah billahi ugu dambeyntiina waxaa dhankooda ka hadlay siday u arkaan hawshan uu komishanku u igmaday qaar ka mid ah howlwadeennadan u ambabaxay maanta magaalada Hargeysa waxaan u baxaynaa maanta anagoo ardaydii gobolka Sanaag gobolka Maroodijeex baan ku qoranahay waxaanuna ku dhaaranay inaanu si cadaalad iyo sinaan ah ugu shaqeyn doono bulshadayada waxaanu kala soo gudanaynaa waajibaad naga saaran dalkayga Soomaaliland saaka waxaan u baxaynaa shaqadii komishanka noo igmaday waxaan rajaynaynaa safar wanaagsan waxaana ku qoranahay Hargeysa aadna waan ugu faraxsanahay marka insha Allah maxay ahayd waxaan jecelahay inaan saddex xisbi ugu shaqeyno si cadaalad ah Yusuf Cabdi Xasan Cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.